مقالكين كوبان waxaan ku sharxi doonaa hadii Allah qaadirka ah uu inoo idmo ama uu inoo ogolaado sida computerkaaga aad ugu xidhanayso smart TV. Smart TV waa TV-yadan casriga ah ee la Wi-Fi-ga oo aad si fudud internetka ugu xidhan karto iyadoo la jaan qaadaysa tiknoolajiyada cusub ee digitalka ah. Sidaa darteed waxaynu casharkeena ku dhigan doonaa steps fudud oo aad uga bogan doontaan maqaalkeena kooban inta uu socdo. wax wire ah ama cable ah haday noqon lahayd VGA, USB, HDMI oo xarkahan projectska iyo TV-yada la isugu xidhiidhiyo computerska ama personal computerska laptopka ah aynu u isticmaalin inta mid kamid ah isticmaalmayno kaliya qaab wireless ah oo xariir laawo ah aynu isticmaali doonaa. waxaan idin soo jeedin doonaa insha Allah anigoo ah Ibrahim Ismaan Cabdinuur. marka say wada sheegnay wax cable isticmaalmayno ama wax fiila kaliya waxaynu isticmaalanaa dhaladeena iyo computerka inagoo isku xidhayna inaga marka dhalada iyo waxaan isku xiranaynaa computerkeena inaga wax fiila isticmaaleen abiska dhalada markaad home ka joogto waxaad ka sii aadaysaa abis kaad soo degaysaa waxaad ka baaraysaa dhaladaada meel ay ku qoran tahay Wi-Fi display sync markaad haysid ayaad okaysiinaysaa ood ku dhufan doontaa insha Allah. way kadib markaad okaysiiso aad qaybtan soo gasho Wi-Fi display sync waxa ku soo baxay inuu sugayo Miracast connection oo sugayo xagga computerka. marka bal docda computerkana aynu eegno yahay imika waxaanu joognaa waa computerka qaybtiisii waxaan rabnaa inaan dhalada ku soo xidhano. waxaanu toos u aadanaa qaybta settingka computerkaaga ayaad Windowska taaban kartaa settingka aad soo gali kartaa kadib waxaad baaraysaa qaybta ay ku qoran tahay devices ayaad ka soo galaysaa settingka kadib waxaad halkan ku aragtaa midigta inay ku qoran tahay display settings iyada ayaan soo gelin doonaa ama ku dhufan doonaa kadib xogaa hoos ayaan u degi doonaa. waxaanu ka isticmaalnaa badhankan ay ku qoran tahay connect wireless display oo ah adoon wax isticmaalayn xarig ah si wireless dhalada computerkaaga ugu xidhiidhi iyada waan ku dhufan doonaa hal mar ayaan click siin doonaa. marka qaybtan midigta waxaad aragtaan in uu ii soo saaray TV ay ku qoran tahay Android TV oo ah dhalada meesha inoo taala iyada ayaan ku dhufan doonaa kadib xaggan ayuu ka wareegayaa. connecting ayuu wadaa hadda wuxuu iskugu xidhiidhiyey si dhammaystiran ayuu ugu xidhmay dhalada iyo computerkuna way isugu kan xidhayihiin. marka bal aynu isla eegno imika halkan waxaa yaalla waa computerkaygii qaybtanna waxaa taalla waa display dhaladii wirelesska aan ku xidhanay ana wax fiila aan isticmaalayn oo haddaad eegtaan computerkayga wax xarig ah oo ka chargerka aan hayn kuma uu jiro. marka waxaan sameynayaa hadda dhalada computerka halkan ay ka muuqataa si aad markaa u aragtid dhaladaada iyo computerkaaga inaad hal waxaad ka aragtid waxaad taaban doontaa Windows iyo B ayaad la qabanaysaa kadib qaybtan ayaad waxaa ka dhigaysaa duplicate oo ah in hal shay laga wada arko computerka iyo dhalada. imika waad aragtaa in ay wada socdaan dhaladii iyo computerkii. qaybtan oo kale haddaan saa u idhaahdo waxaad wada aragtaan in ay wada xiriirsan yihiin oo wax kasta oo aan halkan ka sameynayo ayaduna saameyn doonto dhalada waxa ka soo baxaya. wax caqabad ah kala kulmi maysid waxa waliba casharkani aad u anfacaya dadka computerada qaar waxaa jira kuwa update-ka ah aan xarkaha wadanka lagu isticmaalo aan lahayn. marka sidaa darteed haddii uusan ku gelin dhaladaaduna ay leedahay wax xarigaba waa ka maarmaysaa qaabkan unbaad isticmaalaysaa laakiin waxaa shardiya in dhaladaadu ay tahay smart TV. stepskan fudud ayaad sidaa darteed stepskan fudud unbaad isticmaalaysaa si aad dhaladaada adoon xarig isticmaalayn aad ugu xidhiidhiso. si share garee muuqaalka oo la wadaaga asxaabtaada muuqaalka xiga intaan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.